بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء محمد حسين روبلي حدا سفي عن أي سوبرتين محمد عبد الله فرماجو waxaa go'an asagay Fahad Yaasiin ba inay Roble la dagaalaan go'aankaas waa go'aankooda waxaa ka go'an sifa aan sharci ahayn oo loo adeegsanayo ciidan inay shaqada uga eriyaan xafiiskan uga saaraan Umar Cabdirashiid ay shaqo u dirsadeen waxayna ku yiraahdeen demujadiid iyo himilo qaran ka soo iibi inaan ra'iisul wasaare siino iyo inaan dhisano dawlad ku meergaa 2 sano waa xilliga uu farmaajo doonayo diyaar garoobo si dadkan hawiyaha uga taqaluso awood ciidan ugu qabsado ka horna u laayo kolka markay taa dhinaca kale Fahad iyo farmaajo waxay abaabuleen oo ay leeyihiin ra'iisul wasaaraha guri meeshan ka dhistay been ah dacaayad wasiirka gaashaandhigga uu cadeeyay cid la baaraya ra'iisul wasaaruhu ma aha oo wuxuu yiri waxa la baarayaa taliyihii ra'iisul wasaaraha eedeeyay ama been abuur ku sameeyay guddigii baarista la magacaabana markiiba Fahad farmaajo soo farageli waxa la yiri kama hadli kartaan oo arrintaas anaga siyaasad kale marka ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble fursadaha hor yaala muu ka faa'iideysanaya misi xilli ay xere iyo fandhaal kala dhaceen ayuu soo hadli doonaa waxa hubaala ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble inuu wali awood buuxda leeyahay oo sharciga sida darteed waxa la is weydiinayaa kooxaha mucaaradka ma soo dhaweysanaya ra'iisul wasaaruhu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Shariif mataqaana Shariif Sheekh Axmed حسن الشيخ محمود داهر محمود جيلي إلهي كم سبدي متقنا حسن على غيره خوست مصوغ شرعية ملطة شرعية ملي هي أين وصدافين نكان مسؤولي وحشانية الحج على الدولة نما هيسا فرماجو رجك قبا وحكى السويدينية تضبطي $1 مليون أو فرماجة دعي أيام مقن أو هنت دورها قرنكا وعديي sida darteed waxa la isweydiinayaa Roble guddi ma magacaabaya madax banaan oo baaris ku sameeyay si loo maxkamadeeyo farmaajo iyo xulufadiisa lacagtaas maadaama ay cuneen waa su'aal kale waxa kale la isweydiinayaa maadaama ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble oo si jilcan u maamulay kiiskii Igraan Tahliil oo uu ka aamusay hadalkii ka soo baxay xeeladaha ciidamada qaranka oo ahaa nin baawur lagu qaaday oo la geeyay حرونت النساء كدمني نساء وحضر سيدي ربي النساء وحضر فهد ياسين فريق وحضر يصير ربي يجلس بريحان إمنك وما قعاوي يا رسول محمد حسين ربي قدي مدح بنان أو قبراء أو أمني أو بارس كسمية نول يجري كيس كي إكرام إدي شيء عند سوق عادي يصير له سوق عادي سيدو كله وحا السويدير يا رسول محمد حسين ربي توقع أنا ذكرته إذا ماذا مهور قلنا مسوي حيلة تاي إن فرماجو وسيدا عمصنات تاي وجوليسان كرو مسوي حيلة تاي إن سيدا سي جلجلة عبدا وكم مقدو أو كل معامل كرو أو دورشة تلقوا قبكر وحلو هو تاريخ الصومالي ما دين نينو شبيرها مريحان أو مجارتين أو حقوق الصومالي لبعض الصومال تحقق هو هنينا مجارتين مريحان صوما ما دين إن نين قبيلة أودا شيء أو كسر جيدا وحلو ديبي أما الله دورتي أما يحركوا قبصي وكدور بدا دقال فرماجانا إمنك وحاكاقو عن إنو كرسي غاسي فرديو إتكستو أو كشكيين أو كدلو أو كل لايو أو سكدين دورش دوكا كدين رئيس وزراء محمد حسين روبلي قوان كاسي مو قادانا يا إنو دالك دورشو هفان كقبط مو لحساتون يا مامول قبلين ده gacan bire muu kala hortagaya farmaajo oo horay u shaaciyay inuu doorashadii ku wareejiyay Roble maxaa yeelay iminka wuxuu qaska u sameeyay waxay ahayd wuxuu rabay Roble inuu ceebeeyo karaamada ka qaado sharafta ka dilo ka dhigan in musuqmaasuqa beesha caalamka dala soo hadlaan wuxuu dhahayay aniga waxba kama ogi doorashada waxaan ku wareejiyay Roble amniga waxaan ku wareejiyay Roble markii wuxuu rabay inuu caalamka tusiyo ninka inuu yahay in musuqmaasuq ka shaqeeyo Roble markuu ka hor yimid oo guddiga khilaafaad kala dirna dagaalkaanu ku bilaabay sida darteed $2 milyan farmaajo ku maqan kiiskii Igraan Tahliil Faarax ee ay kuma sabadiiday ee mataqaana go'aamo cadcad ma ka qaadanaya
amniga guud ee dalka go'aamo ka qaadaya ra'iisul wasaaruhu doorasho hufan ma qabanaya ra'iisul wasaaruhu dadkiisa hoostaba soo gashay ra'iisul wasaaruhu hadduu intaas sameeyo uu ka adkaanayaa farmaajo hadduu si toos ah uu u wajaho xaaladda marxaladdan hadda already guddigii baarayay kiiska 72 milyan way howl galeen hanti dhowraha qarankana meel fiican buu marsiinayaa kiiska laakiin waxaa muuqata in rooble uu weli isxakamaynayo taasoo loo baahnayn xilligan maxaa yeelay farmaajo wuxuu yaqaano luqadda uu yaqaano waa in si cad loola dagaalo oo loogu sheego runta diblomaasiyad wax shaqo ku male dimuqraadiyad shaqo ku male doorasho cadaalad shaqo ku male habmaamus dowlad shaqo ku male wuxuu yaqaano waa cay dil xir barbagaan been sheeg intaasuu yaqaanaa balanxumo qiyaamo kuwa hadda uu leeyahay 2 sano dowladda kumeelgaaraan dhisaynaa kadib doorasho soo geli maayo waa idin ballan qaadaya waa been waa tii hore u dhahayay 4 sano daan dhamaysa kadib doorasho geli maayo waana ka soo galay taariikhna weeye nin marixaana iyo nin majaarteena dalka Soomaaliya soo maray waligood may aqbalin dimuqraadiyad iyo doorasho xil loo dhiibana kamay degin ilaa lagu dilo ama xoog looga dejiyo ra'iisul wasaare ugu horeeyay dalka uu yeeshay Abdullah Ciise Maxamuud oo hanni hawiye ahaa si dimuqraadi uga degay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya uu yeeshay Aadan Cabdulla Ismaan oo hanni hawiye ahaa si dimuqraadi uga degay Cabdirashiid Cali Sharmaako oo nin daarood oo majarteenaha bedelay doorashadii iyo ku guuleystay way dileen ayaga dileen markay arkeen inuu uma taqaanaa oo dhinac u janjeero uu rabo inuu dimuqraadiyad sameeyo maxamed siyaad barro nin daarood oo marixaan ah ay qabsaday 22 sano waxa laga tuugay dalka doorasho ka qabo ilaa maalintii ugu dambeysay soo madaxtooyada fadhiya oo madaafiic goobta lagu garaacay fila Soomaaliya ayuu wuxuu diiday dalka doorashaha laga qabtay xilka ka dib ilaa oo carray dagaalkii intaasoo kulo qof ku dhimatay ay uga dhacay xadkii dowladnimadii ee burburtay xuduudda la dhaafiyay Kenya qaxooti uu ka noqday looga daba tagay uu ka carray Nigeria uu ku baqtiyo ku dhintay isagoo ahaa ninkii kibir ka gaaray iyo kaligitasnimo yiri waxaan beeriyo suuradan oo Quraan Kariim oo la suuratu Nisaa oo rag ee dumarka waasiman yihiin maalintuu dhimanay ilaa maanta afkiisa laga maqan waa ka toobad keenay intuu iska weyn qabo hirtiga noocaasa DNA noocaasa qof ka soo jeedahay lagama suugayo dalka inuu doorasho ka qabto maxamed siyaad barre waxa ka dambeeyay cali mahdi maxamed waa tanaasulay waxa ka dambeeyay ilaahay ku sameeyay Cabdullaahi Yusuf Axmed ma Cabdiqaasim Salaah sana ka dambeeyay Cabdiqaasim Axmed lagu soo doortay isagoo waqtigiisa dhamaan ayuu Cabdiqaasim Salaah xasayiri waa wareejiyay xilligiisa loo dhameyn doorasho lagu dul qabtay Cabdullaahi Yusuf Axmed oo daarooda labada hore soo sheegay hawi ahay Cabdullaahi Yusuf Axmed oo daarooda majarteena ayaa yimid wuxuu gaaray iska daa inuu dimuqraadiyadu xayay inuu ciidankii militariga Ethiopia fila Soomaaliya halkii dalka Soomaaliya laga maamulay calankooda ka taago keeno caasimad dalka ku xasuuqo waana la dagaalay wuxuu ku dhintay isaga qaxootiya isaga Quraanka ma caay hal mar wuxuu yiri arabtu waxay ku maamaadaa inna ma'a al-usri yusra isagoo maadaama uu Quraanka aqoonna markii la yiri waa Quraan kaba si fiican buu yiri ma caayo Quraanka Abdullah Yusuf rusheegna wuu ahaa laakiin xukun jaceylta ka qabo dadkii uu laayay oo gumaaday oo qabiilnimo u gumaaday Ethiopian buu keensaday laakiin waa la dagaalay xabad baa looga saaray ilaa jadday Faransa ku tirbax Abdullah oo television u baqa carray isoo qaxootiya ma ku dhintay halkaas ku aqarsaday waa mentality-ga wixii aaminsan ragga siyaasiyiinta ah ee marixaan daarood anaga u bahanta ma arag ogaadina ma arag leelka sana ma arag qol kale daaroodna ma arag oo madaxweynaha Soomaaliya soo qabatay labadaas soo qabatay labadina waa la arkay ama ra'iisul wasaaraha soo maraano ama madaxweynaha soo maraano xoog iyo garbaduub mooye tanaasul kuma tagaan dimuqraadiyad uma hoggaansamaan Cabdullaahi Yusuf kadib waxa yimid Shariif Sheekh Axmed oo Nahawiye dal Djibouti lagu soo doortay caasimadoo yimid isagoo ugu awood badan dadka Shariif Sheekh Axmed oo ogtihiin ninkaas soo jabhaday iyo ciidanka uu haysto ee u gaarka ah ayuu doorasho qabtay Xasan Sheekh Maxamuud oo nin hawiye ah xilku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka dhamaatana si dimuqraadiya ayuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daarood maryaxaana oo boorso kaliya maran kala yimid Bufaalo oo aan hal askari u joogin caasimada dalka gobolka Banaadir
أيضا الأجيا وحلا صوّد مرة إيه قبيل لماذا علادي يوسف ديمقراطي ووريجي أو شريف يحس يغلب هذا قلبه كيس تاجين لكن محوكو أبال جودي نينك الشارع ذاتك براي أو شريف شيخ أحمد أها فرماجي محوكو أبال جودي إنه قرون كو جيدو إنه هوتيل كو ويرو إنه ديارة لسور ريدو أنت هسوق أبال جودي حس يقول الكو وريجي أو في الصومالي كو سدوي يسوق وحبا يسد عيدا لهينا محوكو أبال جودي إنه هوتيل كو ويرو إنه ديارة لسور ريدو إنه يلا قرون كم فكرت dhaqanka marka aan ku sheegay nimankaas daarood ee la yiraahdo ma jeerteen iyo maryaxaan xukunka ugama degaan faataxo Soomaalnimo muslimnimo dimuqraadiyad bini'aadanimo xishood ugama degaan waa inaad ku dishaa waa inaad xabad uga saartaa maxamed xuseen roobla marka hadduu ku fikirayaan iyo hawiye inay faataxa farmaajo uga tagay faataxo tigmay فرماجة هل لغة يقانا أو أخبر جافكيس فرماجة هل وحوك بقى نفسي سير لتوك بقى عبسو يقانا بس عبساس من إلهي ماها من آلنها ماها من صومالي ماها وويل غور ورطة لا في مينو حدو لا أو أركو والتناسلة والدقاء فضع ماها فضي والله فصين واسك بحيا هدي اللي حران نسيبكي لكن ده كان أكو جعل شري وقبيل كسود ويهويها هديرين كحشو جوار بعد كقبتها كاجتيك ما فرماج هذا الكل وإنه عضالة حتى أنت فهم ويسين هوي أنا عارف إمد دونته عاد إلين الساوت الثاني فرماج جوان كيس ويهاي إنه حكوا كسيجوه إنه يتوب يكون ارتيار التري كلي ترياشولا إنه هوية حريه قحوتيه كاكم يفسون الدبيان شبابنا ولا شقيستا وين كغو عنتا إساق إيه هوية إيه مجارتين إنه عكتا مريو أي مركو سود دميان حريها قحوتيك وحوكاو قرشينيا إنه أقادين سياسة كترترو قرشيه سوى عطاسوا وأعصر يعني كوحكا اللي مجو أنا مسلانتا أرقيسين وقرشعب وفرماجو وطو ودونيو إنه داد كان عكتا كبري haddaad jaal la hawiyo isdhigataan ganacsiga ragga caloolaha weyn xamar ku haystaan dikkim daakum buu ka dhigayaa haldoorkiina waa dilayaa gabadhiina waa la dilayaa wiilkiina waa la dilayaa dharaar baa ima doonta awoodda aad maanta haysaan iyo ciidamada maanta haysataan ay si waxba ka jirin ciidankiina furmaha dagaalka la geynayaa baawur qarxiya loo dilayaa saraakiishiina magaalada lagu dilayaa ayagaa la isku dilayaa adugu nin qabiilkaas oo magac hawiyo wata ama isaaq wato ama majarteen wata ama ogaadeen wata la iska soo hormarinaya hawa aragtaan waxa ka soo boosaaso guriceel wixii ka dhacwa ogeydeen shabaabka wasil waad arkaysiin mariixaanka balanbal waad arkaysiin hadda madaxweynihii Hirshabeelle Ali Guudlaaw way ka taqalusayaan agtay saaran dagaal bay ku wadaan Yusuf Dabageed bay ka dul keeneen waa ka farmaajo Rasuul Maxamed Xuseen Rooble been baa la heshiiyay dib baa lagu shiday markuu culays ka qaaday waa ka farmaajo qofka qiyaad farmaajo aqoonin asagay u daran tahay laakiin anigu go'aankayga muxuu yahay inaan hadlo inaan sheego haddii aan arko rag hawiya ama isaaqa ama ogaadeen hubkooda qaatay majarteen oo ninkii iska celinayna safka hore ku jira hadaa shacab arka kacdoonsan safka hore ku jira laakiin mas'uuliyadda koowaad waa inaan hadlaa waa inaan xogaalimadii hadlaa indhaha gorgorkaan leeyahay maalintii la doortay 8 bil kadib ayaan sheegay fiidiyoga daawada aan soo geliyay weligii farmaajo degma weligii taariikhda ma aha nin majarteen ama mariixaan oo kursi ku fariisto oo ka degay taariikhda ma aha say ku dhici kartaa huwa li kaamiran waa kibir qooq miran waa xukun jecel yihiin waa isla weyn yihiin ma taqaana waa